Iswala waabiya hela kooxda kubadda cagta Arsenal oo ku naaloonaysa horyaalka Premier League ayaa xalay waxay iskeentay kooxda PSG gurigeeda oo marti ay u ahayd. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kusoo gashay garoonka inay 3 dhibcood ka qaadanayso guriga ay ku sugan tahay ee PSG, laakiin taas xalay ma dhicin. Kooxda Arsenal oo meel walba laga burbursaday maadaama shabaqeeda la gaaray 5 jeer, 3 jeer oo VAR ay soo qabatay ay ka diiday kooxda PSG, halka 2 gool oo aad iyo aad u xasaasi ahaa lagu badiyay kooxda Gunners lagu magacaabo ee ku dhashay garoonka Emirates Stadium. Kulankan ayaa waxa uu ka tirsanaa Euro League waxaana ay iskula jiraan kooxda PSG iyo kooxda Arsenal hogaaminaysa kooxda Arsenal, laakiin xalay waxa ku dhacay Arsenal ma ahayn wax ay filaysay maadaama ay tahay hogaamiyaasha horyaalka Premier League awoodna ay sanadkan dheeriya la soo baxday maadaama ognahay goolasha ay dhalinayso iyo goolasha laga dhalinayo kooxda kubadda cagta Arsenal mid ay tahay mid aad u xadidan, goolasha ay dhalinaysana ay tahay goolal farihi ka bateen maadaama ay haystaan weeraryaal tayo leh. Waryahanka hogaaminaya kooxda Arsenal waa weeraryahanka lagu magacaabo Gabriel Jesus, laakiin xalay wixii ku dhacay ma ahayn wax ay Arsenal hal marba ay maanka soo gashatay maadaama ay islahayd waa maquulinaysaan kooxda lagu magacaabo PSG, laakiin war dhafoor buu ku yaalaa. Arteta dhafoorkiisa ayay ku taalay guuldarada xanuunka leh ee ciyaar xumada Arsenal ay soo bandhigtay xalay maadaama la ogaa Arsenal inay ahayd mid buu dhisi weysay hal baloonina oo artaagna saman weyday maadaama weerarka ay khadka dhexe aad iyo aad u kala goonaa, boonigana ay soo dhaafsin waayeen khadka dhexe maadaama kooxda PSG ay raacsho xun kala hortimid kooxda kubadda cagta Gunners. Marka saaxiibayaal waxaa muujisa Arsenal inay soo dibcayso maadaama ognahay in kulamadii hadda ay soo dhashay horyaalka Premier League Euro League ba ayna jita fiican aysan kala soo kulmin, laakiin waxaa la filayaa kulamada soo socda ee horyaalka Premier League ay koob kale dheeliso inay kufrin la timaado maadaama ognahay kulankii hore ee Newcastle ee horyaalka Premier League ay barbaro soo galeen, kulankii hadda Euro League-na 3 dhibcood laga qaatay kooxda Arsenal ee sanadkan waxba laga qaban lahayd saaxiibayaal. Marka saaxiibayaal Arsenal faankeedii iyo qabweynadeedii ay ku soo galisay horyaalka Premier League iyo dhammaan koob kale dheeliso waxa noqonaya mid naxuusay maadaama ognahay Arsenal in guuldaro xanuun badan ee xalay kooxda yar ee PSG ay dhabarka u saadhay saaxiibayaal. Lama filayn tan inay ku dhacayso Arsenal maadaama looga Arsenal inay tahay kooxa yarka muqulisa oo u diida inay gool ka dhaliyaan, laakiin xalay taas may dhicin. Arsenal 5 jeer ayaana shabaqeeda la gaaray, 3 jeer waxaa diiday VAR, laakiin 2 ka mid ah ayaa Arsenal loo yeelay kooxda PSG, halkaasna Arsenal waxay ku soo qaadatay hal siro iyo 2 gool oo looga raayay. Hatta hal gool oo goolka calanka kooxda Gunners ma isdhalin hal shootaha hal taargad oo xay ah oo inaba caadi ahayna kuma sameyn garoonka PSG, laakiin tan ma ahayn mid ay filayeen jamaahiirta kooxda kubadda cagta Arsenal inay qaab xumadii iyo ciyaar xumadii xalay ay soo bandhigeen in ay soo bandhigayaan mid ay maanka ku hayeen ma ahan saaxiibayaal. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul weyn gaadhay kulan ka tirsan Euro League ee Khamiisleyda. Kulankan oo ah kulan xasaasi u ah kooxda kubadda cagta Manchester ayaa goolkiisii calanka waqtigii markay Manchester goodii la yimid laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo waxaana ka soo horeeyay Donald iyo Rashford. Kulankana waxa uu ahaa kulan ay ku raaxaysteen kooxda Manchester United maadaama si raaxo leh ay u badiyeen aan nahayn fikir iyo dhibaatana aysan ku noqon kooxda yarteed ay la dheeliyeen, laakiin waxay muujinaysaa kulankan inuu wax kasta ka sameeyay laacibka Cristiano Ronaldo maadaama ognahay inuu kala jaray kooxda yar ee ku imaanaysay Manchester United. Kulamada Euro League ayaa waxay yihiin kulamo aad u xawaasad badan sanadkan maadaama ay imaanayaan kooxo waaweyn ee ka tirsan qaaradda Yurub. Waxaa haddeertaan lagu soo dhaweynayaa Euro League kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Juventus, kooxda Barcelona, kooxda Atletico Madrid iyo kooxda lagu magacaabo
Sevilla oo ah kooxo waaweyn ee ka dheela qaaradda Yurub. Haddeer afartii kooxood ee ka qaybgalayay Champions League dalka Spain ama horyaalka ligaha waxaa haddeer championka baaqi ku sii ah kooxda lagu magacaabo Real Madrid, laakiin saddexdii kooxood ee la safnaa kooxda Real ee Sevilla iyo Barcelona iyo Atletico Madrid waxay dib ugu laabanayaan Euroleague. soo dhaweyn weyn ayay ka sugayaan kooxda Arsenal iyo Manchester United oo sanadka islaha madaxa ku dagsada Euroleague, laakiin waxaa moodaysaa inay dib badan kala kulmayaan maadaama kooxo waaweyn ee ka tirsan Yurub ay dib ugu soo laabanayaan Euroleague. Arsenal ayaa waxaa laga sheegay ma xamili karna Barcelona iyo Juventus iyo kooxda ruwayada lagu magacaabo ee jabhadda ah ee Atletico Madrid. Marka sanadkan waxa laga qaban karo Euroleague ma leh maadaama ay isku yimaadeen kooxo waaweyn oo toweynta qaaradda Yurub ka tirsan. Haddeer habeen khamiisley haddeertan dhib iyo rafaad baa soo socda maadaama aan khamiis arbaco sabti aan la sanayn. habeenkii khamiista aan janiska lehna aslan seexda waxaa la yidhi ciyaar soo tabiya waxaa la ciyaara daawada war dhafoor buu ku yaalaa ishaan dheeraataysaan macnaha u dhufrinay. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gobeynaa wararkeena ku saabsanaa Euroleague iyo xalay wixii ka dhacay garoomada qaaradda Yurub. saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin saaxiib la jaanqaadkiina.